بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسعدي اسمع عليك سو دواو جنال كي سعدي ست صوب maanta waxaan sameynaa insha Allah cream oo laga hagaajiyo huruud ama saliid huruud laga hagaajiyo daawasho wacan hadii aad raadinaysid fikrado ganacsi oo aad ka shaqeysatid insha Allah TikTok-gayga soo follow garee channel-kaygana subscribe si cream-ka waa marka la hagaajinayo laba face waaye face oo biyo ah iyo face oo saliid iyo wax ah wajiga koobaad oo biyaha ah waxaan haystaa 300 gram oo biyo ah 300 gram oo biyo ah waxaan ku darayaa 8 gram oo glycerin ah glycerin-ka homikanti waaye jirka soft ayuu ka dhigaa qaleelka ayuu ka ilaaliyaa ama face-ka face-ka labaad oo haysto waa saliido waxaan haystaa 40 gram oo saliid huruud ah saliid huruud aad u fiican tahay skin-ka way qurxisaa waxaan kaloo haystaa emulsifier wax waa wax waxa waaye 12 gram waxigan wuxuu is dhex geliyaa biyaha wuxuu mas'uul ka yahay inuu cream ka dhigo biyo iyo saliid marka la isku daro waa 12 gram emulsifier wax la dhahaa polar wax la dhahaa waxaan kaloo haystaa CSA ayadana waa emulsifier waaye soft ay ka dhigaysaa CSA waxaan haystaa 8 gram waxaan haystaa steric waa 8 gram asagana waxaan kaloo haystaa shea butter waa 8 gram asagana shea butter waa 8 gram shea butterka khaleelka ay u fiican yahay masha Allah creamka hagaajinayna qofka dry ku yahay aad u anfacaya waxaan kaloo haysanaa 24 gram oo GMS ah GMS asina waxa waaye thickener waaye waa emulsifier marka insha Allah labada face waa soo kuleyneynaa waa isku soo noqoneynaa insha Allah labada face waa soo kuleynaa way noo dhalaaleen labadii face-ki oo saliida iyo kii oo biyahaba marka waa cabireynaa heer kulkooda cabireynaa marka thermometer waaye waxaan cabireynaa heer kulkiisa waxaa la rabaa 70 iyo inuu u dhaxeeyo 75 labadooda isku mid waaye marka waa isku shubeynaa insha Allah sidii aan isku darnay iyo saliidii huruudda isku dhalaashay saliid ay isku noqotay waxaan ku dareynaa biyaheeni masha Allah marka emulsion ayuu noqday insha Allah waa qawoojinaynaa
waxaan ku dareynaa preservative wax inay laaban ka celinayo waa isku soo noqonaynaa marka waa soo qaboojinay salka biyo usoo dhignay usoo yara adkaaday insha Allah facekan waxaa la dhahaa cool down face waxaa lagu marka lagu daro vitaminska waxaa ku dari kartaa preservative-ka iyadoo kulada ku shubto way dhibanaysaa marka meeshan waxaan ku haystaa 2 gram oo preservative productigaada wuxuu ka dhigayaa inuu yaali karo 2 sano ilaa 3 sano soo halaabin waxaan kaloo ku darayaa vitamin E asagana 1 gram ayaan haystaa vitamin E skinka aad u qurxiyaa waa vitamin E acetate waaye whitening dabiici uu leeyahay quruxu ka dhigaya skinka oxidation ayuu ka ilaaliyaa waxaan ku yara shiidayaa marka waa package gareynaysaa weel yar ku shubanaysaa weelka waxa waaye waa germska ka soo dilaysaa alcoholka oo 70% ka lagu buufiyaa inta la dhaqan marka hore la nadiifiyo alcoholiska lagu buufiyaa hawada waa laga saaraa waxa soo dhan kareemka ka ilaalinaysa oxidation-ka kareemkaadi diyaar waaye waa iibin kartaa waa marsan kartaa naftaada inaad u marsatid qofka inuu gado muhiim maaha naawadi waxaa marsan kartid aad samaysan kartid haddii aad u baahan tahay inaad fikrad ganacsi ka abuuri kartid waa intaas markuu hagaajinaynaa waxaa waaye waqtiga anaga nagu badanayo qofku wuu sisimayaa mashiinana way jiraan saan u hagaajiyo oo ku shushuba qofka doon rab inuu shaqo badan galin leebala ku dhajinaysaa marka diyaar waa ogaanaysaa in kareemkan uu yahay kareemka huruud aad ka hagaajisay ama kareem oo vitamin E ku dartay waa ku qoraysaa label korkiisa ku qoraysaa marka insha Allah asxaabtiina la wadaaga si share gareeya ka faa'iideysta dhamaantii khayr idin rajeynaa insha Allah soo follow gareeya TikTok-gayga insha Allah wax badan ayaa ka faa'iidi doontiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.